dadka danyarta ee ajaanibka ah ee ku nool degmo xuduudeedka Togwajaale ee ka shaqeysta gurista xashiishka ayaa maamulka degmada Togwajaale ku eedeeyay in uu muddo ka badan 3 bilood ka haysto mushahar ay kaga shaqeeyaan nadaafadda magaaladaasi iyagoo oo dadkani sheegay in markii hore ay siin jireen ganacsatada degmada Togwajaale balse uu la wareegay maamulka dawladda hoose isla markaana uu dhagaha ka fureystay 3 bilood baan lacag qaadanin waxaan cunana ruusabeen waanu ka rabnay hanoo qadbaan Allah sanad baan ka shaqeynaa lacagnas lacagtayda badan xoogaygi baan raashinka ka shaqeynaa kiradii baan ugu leeyahay ajaana beesay maxaan cunaa la raata xashiishka u baahnaano ninka meeshan xashiishka ummadan isku keenay iyo maamulkaba waxaan leeyahay ganacsatadu hantida waa laga qaadaa dawladuna hanti gaar ay bixisaa oo xashiishka labadaba uu isku darsaday masaakiintana waxba ma siiyo ninkaasi meesha ka baxan leh dadkani oo u badan dad ajaanib ah ayaa muddo 3 bilood hor tuman xarunta dawladda hoose ee degmada Togwajaale iyadoo oo aad naxdin dareemayso marka ay indhahaagu qabtaan baahida iyo diifta ka muuqata dadkaasi haddaba waxaanu arrintani wax ka weydiinay xubno ka mid ah ganacsatada magaaladaasi waxayna noo sheegeen waxaan nahay dadka ganacsatada ee magaalada degan dadkan anaga macaamili jiray lacagtooda oo soo jiray lacag ma nagu laan jirteen nin baa la wareegay ninkii wuxuu noqday nin aan masaakiintii waxba siinay anaga waxba nagu deynay koona waxba siinay ma noqon waxaanu haynay shaqadii dawladda anagu shaqadan dawladda anagu ma liinay dawladda shaqadan iska leh dajima naga qaataa xashiishka inay qaadayada xaq u leh marka anagu ka dul qaadnay haddana dadkii masaakiinta waxaan ku leeyahay in 3 bilood waxay la'aan ku dhacdo ma yeelayno xashiishka xalka la wareegtay waxaan leenahay halkii aad ka timi ku noqo dadkayga anaga macaamilana ku noqo marka laga imaado xaqdarrada iyo dulmiga uu gudoomiyaha degmada Wajaale ku hayo dadka masaakiinta ajaanibka ah ayaa sidoo kale wax jirta dhaliilo badan oo dul hoganaya maamulka magaaladaasi oo kaga imanaya muwaadiniinta ku dhaqan degmada Togwajaale maarixin anagoo dhalinyarta Wajaale waxaanu ka xunnahay dadka la laynayo ee xabadda loola dhacayo sida xoolaha oo kale sababtoo ay iyagu waxba aan sameeynin aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan doonayaa in mas'uuliyiintu hoos noo eegaan dhibaatada foosha xun ee meesha ka socota maadaama ay tahay magaalo ganacsi oo dhaqaale ah magaalo xuduud ku taalana ah uma baahna rabshado isdaba jooga ama burcad magaalada ka dilaacada degmadana uma baahna maamulka degmada jooga waa maamul aan ka jawaabi karin baahiyaha ka jira degmadan waa maamul aan ka jawaabi karin rabshadaha dhibaatada ee ka jira waa maamul aan ka jawaabi karin danaha siyaasiga ama ishuuga siyaasiga ee degmadan ku salaysan tahay ama ka jira waxa weeyaan qalbo waxa loo keenayaa maamul dusha laga soo tuuray oo cid gaar ah wadato wasiirka waxaanu ka codsanaynaa iyo xukuumadda mas'uulka ka yahayba saacadaha tuwasiga degmadan waxa baahan tahay gurmad degdeg ah waxaanu ka doonaynaa inaad noo keento oo noo soo magacaawdo degmadan u qalma sida adigu aad wasaaradaada aad tahay wasiir ugu qalma degmadan laakiin ma haysato maamul u qalma oo shaqadooda ka adag ama shaqadooda ka soo haddaba mar aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino gudoomiyaha degmada Togwajaale eedeymaha kaga imanaya bulshada ayaanay noo suurtagelin kadib markii uu nagula kacay dagaal gacan ka hadal ah waa Cabdirashiid Salmaan Muuse Somali Cable TV gobolka Gabiley